بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بقى مهد سقناطي إله نوسمي إنانو وناقة إيو حمانتا آنو كلا قرنو إله هسبا مهد سقناطي هورين أوبالان سنين معناها إنان مالين كستو أي تلادات هاي عن إذين شاقو أساس أما بلو cuntada sida loo kariyo oo ah bilowga cuntada hadhowna insha Allah ay gaari doonto meelo sare waa dadka ku xiran Sheikh Nuruddin Channel dadka ku xiran ayaanu sheegayaa waynu balansanay islaamka maalin kasta oo talaada ah saacadu markay tahay 1 ilaa 2 waa waqtiga UK inaan waxoogaa yaro aan idin tuso basic cuntada ah oon ku bilaabo cunto Soomaali hadhowna insha Allah ay gaadho cuntooyin kala duwan oo fara badan oo noocyo badan leh oo bini'aadanku cuntooyinka ay cunaan arintani waxay aad u qusaysaa ay waliba aad u taabanaysaa aabaha aan waxba sameyn kareynin gabdhaha Soomaaliyeed dhamaantood cuntada way sameeyaan cuntooyin kala duwan oo fiican bay sameeyaan laakiin waxa buuxa oo badan aabayaal fara badan oo waxba sameyn karin xataa aan cuntada shaaha ugu fudud ee wadankan Ingiriiska laga yiraahdo English tea waa biyo kulul iyo xabad caleen oo la isdhexgaliyo ragga qaar xataa aan samaysan karin baa jira saa awgeed marka arintani gabdhaha tii aan samaysan karin cunto waa qusaysaa laakiin ragga majority-ga cuntada ma samaystaan laakiin waxaan tusayaa waxoogaa yar oo ah inay cuntada samaysan karaan waa very simple waa very easy waa arin fudud cuntada fahankeeda iyo isku darkeeda iyo measuringka iyo qiyaasta measuringka waa cuntada qiyaasteeda iyo waxay u baahan tahay iyo waxoogaa deganaansho ah inaadan adna dhibaato isa soo gaarsiin oodan gubanin oo maada gacanta mindi iyo dabku ka qabsanin waxoogaana aad deganaanshana muujiso safety-na aad ilaaliso nabadgelyadana aad ilaaliso hygiene-ka nadaafaduna waa very important nadaafaduna aad bay muhiim u tahay inta haddii aad controlsho waa aabaha Soomaaliyeed ee ku xiran Sheikh Nuruddin Channel aabaha Soomaaliyeed ee ku xiran sidaasaan kugula dardaarmaya marka kistoyer maanta waxaan jeclahay inaan idin ku leexiyo cuntada aan doonayo inaan sameeyo oo basic ah waa bilow basic waxa weeyaan waa afka Englishka waa bilow cunto bilow ah oo aan doonayo inuu aabaha Soomaaliyeed u fahmo oo dabeetana uu soo caruurtiisa wax uu karsado reerkiisa wax uu karsado sidayda oo kale qof kasta oo Soomaaliyeedna saasaan la jeclay gabadha aan waxba u bilownayn lafteeduna ayaduna ka faa'iideysato kistoyer waxaan idin ku leexinayaa maanta waxa aan doonayay Soomaaliduna aad u jeceshahay inaan kistoyer idin ku leexiyo waxa uu yahay waa magacu waa sabaayad ama waa kimis ayaan doonayaa inaan wax yar idin ku leexiyo raali ahaada markaa